dowlad goboleedka Puntland oo ku dhawaaqday dagaal buuxa oo ka dhan ah dowladda federaalka iyo dhaqdhaqaaqyo culus oo ay dowladda federaalka ka bilowday gobolka Bay. Haddaan ku bilaabo Puntland, dowlad goboleedka Puntland oo uu hogaamiyay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqday dagaal ay ku tilmaamtay mid isdifaacid kaas uga yimaada dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Xirsi Qarjab oo saacadii la soo dhaafay Khamiis 23 Abriil 2026 ka hadlay xaaladda dalka iyo khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhaxeeya mucaaradka iyo dowladda federaalka ayaa si cad u sheegay in Puntland ay diyaar u tahay dagaal ka dhan ah dowladda federaalka. Wasiirka arrimaha gudaha Puntland wuxuu tilmaamay in dalka uu galay marxalad mugdi ah oo aan la saadaalin karin waxa dhici kara marka la gaaro 15 May sanadkan 2026 xilligaas uu ku eg yahay madaxweynaha sharciga ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo baarlamaanka federaalka uu meelmariyay wax ka beddelkii dastuurka khilaafka uu ka jiro kaasoo muddada xilka madaxweynaha gaarsiinaya ilaa 15 May sanadka soo socda 2027 tan oo ka dhigan in madaxweyne Xasan Sheekh ay muddadiisa xilhaynta ku egtahay 15 May sanadka soo socda 2027 si kastaba wasiirka arrimaha gudaha maamulka Puntland ayaa shacabka Puntland fariin la yaab leh oo culus u diray shacabka Puntland kadib markii uu ugu baaqay inay u diyaar garoobaan difaac iyo dagaal ka dhan ah dowladda federaalka. dowlad goboleedka Puntland ayaa ka mid ah mucaaradka sida weyn uga soo horjeedo dowladda federaalka. warkan ka soo baxay wasiirkeeda arrimaha gudaha ayaana ku soo aadaya xilli ay cirka isku shareerayaan khilaafka u dhaxeeya mucaaradka iyo dowladda federaalka oo ay Puntland qayb ka tahay. dhanka kale marka laga yimaado Puntland xaalad kale ayaa ka taagan koonfur galbeed kadib markii dowladda federaalka ay howlgalo iyo dhaqdhaqaaqyo culus ka bilowday magaalada Baydhabo ee gobolka Bay caasimadda ku meel gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed sidoo kalena uu ku shaqeynayay maamulkii hore uu hogaaminayay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. howlgaladan ay dowladda federaalka ku beegsatay qaar ka mid siyaasiyiintii taabacsanaa madaxweynihii talada lagala wareegay ee Laftagareen maadaama dowlad goboleedka koonfur galbeed uu hadda gacanta dowladda federaalka uu ku jiro. haddana howlgaladan ka dhacay Baydhabo saacadihiinu ka soo gudubnay waxaa hubka looga dhigay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii xilalka ka hayay nidaamkii uu hogaaminayay Laftagareen kadib markii dowladda federaalka shaki ka muujisay siyaasiyiintan taabacsanaa dowladdii hore ee koonfur galbeed. xogaha hoose ee laga helay Baydhabo ayaa waxay tilmaamayaan in siyaasiyiinta oo howlgaladan beegsaday uu qayb ka yahay Maxamed Yuusuf oo ahaa wasiir ku-xigeenkii amniga ee koonfur galbeed. mas'uulkan ayay dowladda federaalka ka qaaday ilaaladii iyo hubkii gacanta ugu jiray kadib markii nidaamka meelgaarka ee ka hirgalay koonfur galbeed ay shaki ka muujiyeen mas'uulkan maadaama uu ka mid ahaa raggii aadka ugu dhawaa madaxweynihii xilka laga tuuray ee Cabdicasiis Laftagareen. isku soo wada duuba dhammaan arrimahan ayaa ku soo aadaya xilli dalka uu ku jiro marxalad xasaasi oo kala guur ah sidoo kalena jiraan qorshayaal iska soo horjeeda oo la xiriira doorashooyinka dalka wax ka beddelka dastuurka xilli madaxweynaha rasmiga madaxweynaha dowladda federaalka uu ku egyahay 15 May sanadka 2026 balse su'aashu waxay tahay yaa hirgali doona qorshayaasha mucaaradka iyo qorshaha madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud.